بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا لا فيتوريا سيمبر غاياشا ميلبا تشوكتين هذا كيبو عدي جيلك سدحاد وحبان نيشيغيا ميلو بالي قاصان waxaa lagu yiri codkaaga meel dheer u gaaraa nagada Soomaaliland iyo waxa wadid iyo kan rag iyago garxajisa iyo qolo walba ilaa reer Muqdisho meelba waxaa la yiri min ma yaqul alxaq shaydan akhras reer Soomaaliland waxaan jeclahay si fiican dhigeystay hadalkaygu wuxuu ku socdaa xildhibaanada Soomaaliland ay ugu shubaa oo ku Muqdisho noqdo mooshinii balaayo xildhibaanada ka hadlayo ittifaaqiyada saameen kan meen hadalka qaqaan si fiican u dhageys wixii hore iyo wixii hadda waxa laga fikiraa waa mustaqbalka iyo horumarka Soomaaliland xildhibaanada waxbaan xusuusinaya iska daaya dawladda Soomaaliyeed adduunka ka warhaayo wax walba wareysta waxaan nii sheegayaa dawladda Kenya xildhibaanada sax ku jiraan wax walba ku jiraan dawladda Kenya magaalada Laamo waxay ka dhisoosaa dekad weyn bay ka dhisoosaa dawladda Kenya Laamo dawladda Kenya badii Soomaaliya qaadatay petrolkeedii wax walba oo aajibkaas iyo dawlad la aqoonsiyo dawladda Kenya waxay qaadatay dekadii ay dhisaysay ku taalay Laamo waxay shareholder ka dhigtay 33%, 20%, 15%, 19% Uganda, Tanzania, Burundi ay ka dhigtay dekada ee Laamo ee la dhisayo waxaa share ku leh 9% ku leh Uganda boqolkii 80 waxa ku leh Burundi waxa ku leh Tanzania dawlad badan maxaa dhacay waa suuq bay ku raadsanaysaa ku saxeynaysaa wax ka hadlay male barnaamijkeeda kama hadlin wax walba kama hadlin deer waa intellectual waa dad qaan gaaro mature ah oo ka fikirayo horumarkooda iyo ganacsigooda iyo albaabka ganacsiga u furmay dadku wax ka dhoofsanay dadku wax u geynaya marka xildhibaanadu taabaan ugu jawaabaya suuqan Ethiopia waa suuqan u baahan suuqan Ethiopia wuxuu naga kaafinayaa export suuqan Ethiopia wuxuu naga kaafinayaa importer Afrika ka galno ilaa Uganda Tanzania Bujumbura Merbo reer Somaliland anigu dad baa idhawaad waana video ku aragtay waxaan doonayaa inaan wax dad ku sheego يوم القيامة واللي ويديني يا علمي محاد كوكبتي محاد شكتي محاد كذا ولا على يا 21 century يا لوجتشرا جيبوتي بيرملو بزباس كما بحو ليندلان كما بحو جيبوتي لو مالو عانا مالو وحي عنان عاص مالو عاص ولا سوء بيا ولا كينا أيها نولو منطقة كفايدس ما أنت إلو العليو اللي يراهو Somaliland بأبار كان على قاتشو لوجو دماني حولي دماني يعني بيا لهن واحد بلهن توا حول لا يعب تعالوا حكيتوا بادلك education وحانو شيء رير Somaliland سيودنيهين مقالوا كانوا كل كتير دول كانوا شيئين يسمع حجرما reer Somaliland سيودنيهين هذا حيرة هالدجان ده راب والوايا ده أحمد شلو راب هدودين وين ما وقفنا والولي قاعد ما خشيت بطبع قرطي مايا ده حيرة هالدجان وحني لا يعني ده بطل كلام باكبر أو صاع عاريو ده بدو صدات reer Somaliland ma kaachon karaan xeebaha daga kalluunka cuna xeebaha daga kalluunka cuna reer Somaliland waxay leeyihiin xoolo raacato xoolo dhaqato
ninka gaajoonaya geelka ku hor dhimanaya ariga ku hor dhimanaya looda ku hor dhimay deen adeero khaloo cun khaloo salool khaloo muqmad ka samayso intuusan dhiman Soomaaliland laguma baahan karo abaartu waxaa ugu wacan reer Somaliland daciif oo dad niyad xun xoolahooda ka faa'iideysanay khalay biyo ka faa'iideysanay badi ka faa'iideysanay kalluun ka faa'iideysanay beer ka faa'iideysanay war haddaad beertaan gocos baa cunaysiin oo vitamin marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego it's time inay xildhibaanada iyo oday dhaqameed noo talin waa time dowladda lagu taageeraa horumar Soomaaliland waa sharshaari berbera waa bandar cadan waxaanu doonaynaa dekedda Ethiopia inay sheer ku yeelato oo aan sharshaari noqono ilaa Ethiopia xalba geeni oo aan free zone noqono Ethiopia laga qaado xuduudada iyo visa waxa la isku gudubno oo noqono hal dal runtaan ii sheegay annagu Somaliland tujaar baana ka bilaw qaadwale ka bilaw arile ka bilaw sharshaari ka bilaw ku xoolaa dhoofiyo ku argaa dhoofiyo gada bursiyo wax walba dheh wax loo baahan yahay waxaan u sheegayaa baarlamaanka Somaliland waxaa tiran maxay Ethiopia 19 loo siiyey ani waxaan ku leeyahay maxay Kenya dekedda Laamo u siisay 19 Uganda 20 u siisay Bujumbura 20 kale u siisay Uganda iyo Bujumbura why they need partnership they need tijaarad waryaada waxba nii sheegaa wallahi ya billahi talla hada si fiican dhageysteen dhalinyarada iska daaya odayaasha waalan ee qabyaalada ku jira kuwa baarlamaanka ka hadlay hadda si fiican dhageysteen Muuse Biixi waxa kaliya oo aan kula dagaalamayna oo aan kula hadlayna oo aan kula doodayna dekada berbera waa dhalinyaradu barataa shaqala waa in gawaarida berbera ka baxay halbaga microfinance CBS kashtoon subiya kawaari loo iibiyaa dhalinyarada transport ka qaadaan Muuse Biixi is the most best president of the world habeenayd u dhaay de dhalinyarada saxliga sarwa yaabana u yiri technology iska wax walba noo sheegi karaan Muuse Biixi waa madaxweynahana waxa weeyaan waa madaxii head of state ee dowladda lagu sheegay wasiirada ma dowladda waa shacabka kamanshibida ka shaqeeyo kan askariga kan nin walba Muuse Biixi waa madaxweynihii qaqaan maanta laga bilaabo waxaana afhayeenka Muuse Biixi waxaan ka doonaynaa Ethiopia 19 ka siisay waad ku maadsantahay waxaanu ka doonaynaa shaqaalaha dekedda hawbatan Somaliland kuwaan khibrada leh dibadda laakiin Muuse Biixi waxaan kala hadlayaa afartan adeeg gawaarida leh maahanay dhalinyaro iyo iskaashatada suubi transporter Somaliland leedahay suubi oo ilaa Afrika wax gees Muuse Biixi waxaan ka doonayaa tareen Muuse Biixi waxaan ka doonayaa lacagtu DV wall ka soo gasho dekada badan inuu ku sameeyo tanzeex ku hagaajiyo lugaayo ku hagaajiyo bulxaar ku hagaajiyo Muuse Biixi waxaan ka doonayaa Port de la Pesca kalluun baa wada ka buux waxaan doonayaa talaajooyin cold store in laga dhiso bulxaar waxaan doonayaa in iskaashtoon la subiyo dhalinyarada doonyo la siiyo waxaan ka doonayaa dhalinyarada in civil service laga dhigo waddanka difaacaan waxaan ka doonayaa micro investment you are the best president why Somaliland Republic the Republic of Somaliland weeyaan jamhuuriyad baan dhulka in la kala yeelan adi madax u tahay kabinetkaagii wax walba laakiin planninga wasaaradda qorsheynta waa inay shaqaysaa wasaaradda kalluumaysiga waa inay shaqaysaa wasaaradda arrimaha gudaha waa inay shaqaysaa wasaaradda gaashadhiga waa inay shaqaysaa hooyooyinka waa inay shaqeeyaan civil society siyadad kale oo tirgelaya
xildhibaanada u baahan dib celis iyo dhaqan u celis waa diaspora kulligood waa garanaya guryaha ku xirnayay Etoobiyaan u shaqeeyo way tumanaya war waxaana yiri Somaliland Ethiopia daaya waxaana yiri xildhibaanada suuq baan haysanaa dowladda Kenya waxay dhisaysaa dekad laamo ku taal waxay sheersiisay Uganda Tanzania waxay sheersiisay Burundi waxay sheersiisay Bujumbura Melo wax ka hadlay male baarlamaanka raggan hadlayo shir isfaaqiina laba kan war dowlad baan leenahay kadib ilaahay wasiir khaarijiya leenahay itfaaqiya soo gal Somaliland xeebaha daga beeraha fasha البحر نقدر creative نقدر tourism سمايا travel agency سمايا ودك هرمريا إن قد دايا وحلق عنا إثيوبيا كان إثيوبيا وعبتي هم رحوش يا بابا قادر مش الخال والد عاسي والدين باتينا دا إثيوبيا كازجين سمالها مخلوق إثيوبيا وايد سنة والرع سنة و 100 مليون people oo u baahnay waa dhafarka Soomaaliland waana aqoonsiga Soomaaliland iga qaliijkana waa aqoonsiga Jamcad Carab maanta meel fiican baa marayna waxaan leeyahay ilmaadeerayaal ilaahay ka baq Soomaaliland lagu baahan yahay xoolaha dhimanay war xoolaha waa la waraabiyaa waa la daaqiyaa meel walba waa la safraano dhib bay balay war iskaga baxa magaalooyinkii hawdka xeebaha Somaliland daga wali ma maqasheen bad baa gurtay maya war kalluunka cuno maskaxa yeelanaysiino qabilkan iga baabay xeebaha daga kalluunka jilaabta gaata wax cuna dabaasha raaxaysta hasta la Victoria Sabraqa waligeen ma baahanayno haddaan baahannahay waxa weeyaan mujrimiin baana anaga nafteena dulmo jaahil baana hasta la Victoria Sabraqa مع السلامة